Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalahey soo dhawaada back to school. waxaan ku jirnaa iskuul isku diyaarintii iskuulka noo bilaaban rabo. maxaa diyaar ku ah waaye maanta videoga idinla wadaagayo waxa waaye video kaleeto weyaan. hopefully fadhiga kaa kiciyo, fikrado ku siiyo, idea ku siiyo. so insha allah haddaa igu cusubta waxaan ka codsanayaa meesha hoose gududan subscribe-ka noo taabo, like noo saar. shuruuc badan raba in channelka buuxiye, so igu caawiya insha allah durbin. okay, so saa ujeediin alaabaan kala naash weya. okay, waxaan kuu sheegayaa waxa waaye meal planning waxa la dhaho weyaan. cuntadii aan sii diyaarsanaynaa oo isbuucay ahayd. so fikradaan raba inaan ku siiyo insha allah. buugka qalin soo qaadaya, fikradan qaado insha allah. waxaan rajeynayaa adna inaan ku anfacdo oo gurigaaga maaragtay wax ka bedeshid. haddii aad tahay hooyo maaragtay dhibayso cuntada guriga inay kariso, ay reerkeeda u diyaariso, ama cuntada banaanka badankeed last minute decision cunto banaan in laga soo qaado ay tahay, waxaan rabaa inaan ku siiyo fikrado. cuntooyinka qaarkood frijeenka freezerka sii gasho. for example, hadduu chickenkaaga ama hilibkaaga uu diyaar kuusii yahay, hadhowti markaa freezer kasoo saartid waa kari le waay moogta. baastida ama bariiskii ama waxa u karin lahayd suqaarka ama sabaayadii waxa u samayn lahayd dhinaceeda kale waay. sabaayada xataa waa sii samaysan kartaa iyadoo fara badan freezerkaa gashan kartaa, but taasi different story wayaan. hadda waxaan ka hadlaynaa hilibka wayaan, iyo waxaan ka hadlayaa groceryga. fikrada badan dhiirigelinta oo xisaabtanka dhaqaalaha maaragtay channelkan kalu saaran yahay, laakiin channelkan waxaan rabaa inaan ku siiyo adiga example waxyaalaha qaarkood. okay, so saa ujeediin hadda waxaan samaysanayaa waxa waaye sooskii aan ku dari lahaa chickenka iyo meatball aan sameynaya. so spiceska oo lagu daro cusbada iyo dhadhanaanka kale iyo carfisada kale waxa kaleeto waxa weeyaan waa naturally qof walba wuxuu haysto weeyaan. okay, so wixii extra ku darsan kartid oo spices adiga jeceshahay adiga unba weeyaan. aniga wixii haysta le nash ku siiyey saa ujeedeen. so waan kala qaybsanayay laba baaquli aan kala sameynaya because kaasna chicken ugu talagalay, midna waxaan ku talagalay meatball spaghetti waa baastada oo hilibka waaweynka ku jiro, hilib shiishiidkii oo la kuskuusa waayo la waaweyneeyey. hilibkaneeto markaan samaysto waxaan gashanayaa freezerka oo maalinta aan rabay inaan sameeyo aan u sameynayo baastada loogu talagalay waa baasta dhaadheertaan jeclahay usually. waxa weeyaan taasaan soo saaranayaa, deep frost aan sameynayaa. still waxaan sameynayaa steak waan sameyn karaa, chicken steak waan sameyn karaa, haddaan rabo mid kale waan sameyn karaa. laakiin sometimes haddii aad tahay maaragtay oo aad ku jirtid deg oo aadan aqoonin waxaa karisid, meatballkaaseta naftarkiis waa hilib waaweyn waa moogta, iyo baastadii iyo ansalaatadii dan iyo cabitaankii cunto ready weyaan. waa cuntada ugu fudud weyaan, because baastada intay karkarays maaragtay ayaa suugadiyaa shiilshiilaysaa, dan waxaa ku daraysaa hilibkii frozen ah, but because wuu kuu karsan yahay already, just inuu soos ku dhex karo. cusbadiisa wixiis oo dhan ugu wataa. cusbadaada oo qiyaas oo sooskii aad ku dartid basashii iyo yaanyadii sooskii iyo waxaa ku dartay le ma ogiye. hilibka waxa waaye baalaysma weyaan, spices wixiis oo dhan already waa ku qiyaastay wuu wataa, freezerku kugu jiraa, so ma ku dhibayso. so chickenkani waxaan sameeyaa adeega oo hilibka maalin waxaan ka dhigaa separate, maalin ka duwan maalinta oo maaragtay adeega caadiga soo samaysanaya. reasonka waxay tahay waxa weeyaan jikada kaa buuxdo. jikada hadday especially jikada hadday yar tahay, jikada dhan kaa buuxayso. jikadan waxay ku wanaagsan tahay inay khafiif kuu tahay runtii. haddii kale waxa waaye waxyaalo badan isaga dhex qasqasmaya. saa ujeedin hadda jikada waa khafiifiye, alaabti badankeed saa utuura guriga khafiif iskana noqonaya. okay, waan khafiifiyey. markaan hilibyada waxaa sameynayana waxaan rabaa inay chickenka waa say sheegeen waxa waaye waa bacteria wataa markuusa karsanayn. so meel walba aad ku taabatay chickenka waxa waaye disinfect inaan ku samaysid. so ma rabi inay alaab ii dhawaato, ma rabi inuu biyo flash uu noqdo uu taabto ma ogtahay. so waxa waaye wax walba waan ka dhaqaajiyaa meesha. saa ujeediina adeegayga caadiga ma soo samaysanin oo videoan ma ka arkaysid because maalin kalaan sameeyey adeega. so adiga fikradan ku siinaya waxa waaye haddii aad tahay qof maaragta weekendiga keliya awoodo inuu soo adeegto, dan kala qaybso, 2 maalmood oo kala qaybso. sabtida maalin, axadana adeega caadiga ama hilibka ayaa soo adeeganaysaa. adiga kala qaybso maalintii kuu tahay. ama waxaad samaysan kartaa wixii hore hilibkii wixii intaa soo gadatid aad iska dhamaysid waxaasoo dhan, dana eveningka ama galabihii
adeegaaga caadiga ah ama sidoo kaleeto haddaad soo wada adeegatina aada choice lahayn ay tahay inaad maalinta soo wada adeegatid dana plan sameyso oo ha noqonin qof maaragtay gaajeysan markaa adeega aadaysid haddaa gaajeysan tahay already study sameeyaan gaaladaanit waxa waaye wax walba nooga horeeyaan study sameeyaan waxay dhaheen caloosha hadday gaajo ku hayso adeeg aadid waxaa soo gadaysaa waxyaalaha aad u baahneen waana run waayo bal adigu fiiri maalina gaajeysan tahay wax walba soo aruurine maalina aad caadi tahayn oo aad dhargsan tahay oo aad qadaysay aad markaas adeega aaday waxaad soo gadaysaa waxyaalaha keliya muhiimka ah muhiimay tahay inaad wadatid list oo cuntooyinka aad u baahan tahay muhiimka oo guriga loo baahan yahay inuu kugu qorayaan fiican list aad wadatid especially markaa maaragtay aad tahay qof jecel inuu wax walba soo gado waxaa wanaagsan inaad list samaysatid plan sameyso budget sameyso budgetka video kale channel kale ku jiraan laakiin waxaan ka wadaa xisaabtanka hooyo xisaabtanka lacagtaada ugu talagashay adeega keliya okay so videoga hopefully in maaragtay uu fikrado ku siinayo but waxaan rabaa inaan hadalkayga maaragtay uu meel dheer u gaaro aad maqashada rabaa insha Allah bacteriadii wixii dhan disinfectay waxaas oo dhan ku sameynayo u jeedin ma rabo inay maaragtay isku qasmaan mar alla markaa chickenka sameeyay waxa waaye meeshii ka daba nadiifi haddii kaleeto cunug ordaya koob ku dhex dhigay sinkiga adiga daada nadiifinin waxa waaye because waxaan jeclahay in jikada aan liisoo gelin markaan la dilgaraynayo chicken iyo cuntooyinkaaseeto haddaan ku noqono warkii xisaabtanka hooyo aad iyo aad muhiim u yahay channelka kaleeto videoga ayd meelaha kasoo baxaysaan kugu soo dhejinayaa waxaan ka wada xisaabtanka oo sameysa aan ku leeyahay lacagta kusoo gasho lacagta kaa baxday waxaasoo dhan okay fikradaan ku siinaya waxa waaye cuntooyinka gurigaaga laga jecel yahay ayadana sameyso list oo gurigaaga cuntooyinka laga jecel yahay danna list waxaa sameysataa hooyada gurigooy list waxaa sameysataa adiga kuu fudud oo maaragtay cuntooyinka maaragtay oo dhaqsada aad sameyn kartid in waxa waaye color marisida ama circle ama adiga inaad ka badishid waaye cuntooyinka kaleeto caadiga ah because maxaa yeelay dhaqso cunta u karin kartid waaye cunto kuu fudud waa adiga cunto maaragtay haddii maaragtay oo desperate aad tahay oo because sometimes waxbaa dhaco moogtaa banaanka ku maqneedeen waa soo noqoteen adigoo daalana soo noqotay mana rabtiin cunto fara badan oo maaragtay oo kaala argaa karisid waxaa rabtaa wax fudud oo bobsiis aa karisid sidaan oo kaleeto freezerka kugu jiraa hilibka dhay waa soo saaraysaa deep frozen aa ku sameynaysaa horaad ka sameynaysaa baastada biyaheeda kuu karkarayso meatballka spaghettiga ready kuu yahay ansalaatadii dhay waxa waaye cunta haysataa cuntooyinka banaanka laga cuno budgetka ku darso dhaqaalaha xisaabtanka ku darso maalmo qaarkood waxaa loo baahan yahay cunto banaan in laga cuno desperate waa because banaankaa joogtaa choice ma lihid ilmihii waa kaa gaajaysan yihiin adiga waa daalantahay waa gaajaysantahay guri markaa soo noqotid haddaad damacdana cunto karisid iyaga dhanac cunay ilmaha dhanac cunay because waa qaylinaya waa haddaan soomaalina waa isnaqaanaa waa qaylinaynaa ilmihii cunaynaa caytamaynaa habaartamaynaa so maxaa kuu wato budget ugu talagal maalintii saasoo kale desperate ee dhacdo sheeko dhacdo whatever reason aad banaanka kusoo dahday waxa waaye waxaa haysataa plana u haysataa oo cuntada ugu talagashay maalintaas inaa banaanka cunto kasoo qaadid guriga keentid kala qaybisid cuntooyinka banaanka laga soo qaado runtii wax wanaagsan inaad maaragtay aad kala taqaanid restauranyada qaarkood because restauranyada qaarkood cunto badan ay bixiyaan guriga markaa keentid meeshaa soo gadi lahayd each person saxan bariis iyo saan iyo kida maaragtay waxa wanaagsan kabala saxan inaad soo qaadato guriga markaa keentid baaquliyada ku gedisid baaquliyada waxaan ka wadaa marka cuntada la arkaayo waa laga dhargaa meeshii cuntadii maaragtay haddii baaquliga xunkoo lagu keeno oo cuntada lagu soo adeegto maaragtay haddii aad ku keentid waxaa laga yaabaa gaajaysantaa more anyways hopefully aan fikrad badan ku siiyey so jazakallahu khayr daawanaysa haygii loonta masaa subscribe hadaa ugu cusub tahay okay subscribe-ka aad iyo aad u caawinayaa like-ka aad iyo aad u caawinayaa sii share gareeya khayr idin rajaynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa noo videoga dambe